hay'adda taakula community Somaliland ayaa deeq raashin mucaawin ah oo gurmadka abaaraha gaarsiisay deegaano hoos yimaada degmada Ceelaf Weyn oo ay abaaruhu saameyn weyn u geysteen xilli ay deegaanadaasi ay isku raaceen abaar iyo biyo la'aan baahsani waxaana deegaanadaasi ay hay'adani deeqdaasi raashinka ay gurmadka ay gaarsiisay kamid ah Galyaqa Xamilka Darin Yaxye Garabcad Beer Weyso deeqdani ayaa ka kooban saliid bariis iyo daqiiq ugu horeyna waxaa deeqdani gurmadka raashinka halkaasi ka mahad celiyay dadka deegaanadaasi waxaana soo gaarsiisay dadka taakulo waanuna ka guddoonay 80 kiish iyo 80 caagad oo ah gudoomiyaha tuulada Xamilka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku qaybinayno tuulada Beer Weyso deegaanka Beer Weyso waxaan uga mahad celinaynaa hay'adda islaamiga ee Danish islaami ee soo bixisay iyo hay'adda taakula Somaliland community oo na soo gaarsiisay oo dadka soo gaarsiisay intaba mahad baan u celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa ilaahay waa mahad 80 kiish ee kala wareegsan oo soo gaadhay waanu ka gudoominay hay'adda taakula waanu uga mahad celinaynaa cidii waday iyo cid soo haye tuulada Yaxye wanaagsan baan nahay deegaan wanaagsan abaar baan soo maray caafimaad daro dad iyo dunyada marka waxaan u baahanahay in la saakuleeyo ummadda muslimka gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamuud Maxamed Ducaale oo isagoo ah wakiil ku hadlayay hay'adda taakula community Somaliland maanta waxaanu qaybinaynaa ilaa 5 tuulo oo deegaankan Ceelaf Weyn hoos yimaada oo Xamilka Galyaqa Beer Weyso Garabcad iyo Darin Yaxye inta in ka badan wixii karaanka yagaana wala qaban doono intii waa dad abaaruhu saameeyeen una baahan caawimo tan dheer dadka meesha yaalay ka badan